بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaynu ka soo baxnay hijradii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu soo gaadhnay mujtamacii madaniga ahayn inuu xoogaa ka bixinno yani marintii hore waxaynu ka warrannay maka iyo qaab dhismeedkeedii siduu ahaa iyo tarkiibadii mujtamaca ku noolaa iyo waxay ka shaqayn jireen iyo waxoogaa baynu ka tilmaamnay madiine iyana saynu u fahamno waxaa habboon inaynu waxoogaa eegno madiina magaceedii qadiimka ahaa yathrib baa la odhan jiray waana magaalo qadiim oo taariikh hore gabowday leh waa magaalo maka ka biyo badan bay ahayd dhinacyadana ay ka xigaan xaraad nin kastoo bariga iyo galbeedka labada xarre kaga kala yaalla xaratu waaqib iyo xaratulwabra oo midna bariga ku taalla midna galbeed ku taalla ay xarooyinka ugu waaweyn ahaayeen xagga waqooyi iyo xagga koonfur galbeedna laba buurood ay ka kala xigaan oo jabalu uxud iyo jabalu ciir laba buuroodoo la kala yidhaahdo magaalada gudaheedana waadiyaal badan bay lahayd oo waadi batxaan mudayniib mahzuus caqiiq yani waadiyaal tiro badan baa magaalada dhex mari jiray maadaama ay buuraley hareeraha ka xigto dhowr waadi oo engegan oo majmuc albuxayraat meel la yidhaahdo majmuc alasyaal buxayra meel yar oo ay isugu wada yimaadaan intooda badani yathrib degaan ahaan laba kooxood baa deganaa koox caraba iyo koox yuhuuda labadan kooxood culamaai taarikh markay ka warramayaan wakhtiyaday soo degeen exactly lama yaqaano laakiin waxaa degaankooda horreeyey kooxda yuhuudda ah oo yuhuudda asal ahaan yuhuudda xijaas degtaa waxay ka timi baa la yidhahdaa sham oo suuriya iyo yani qaybtaa sham la yidhaahday waqooyiga iyo masar bay ka yimaadeen baa la yidhaahdaa gaar ahaan sham qarnigii koowaad iyo labaad ee miilaadiyada markii ay romanska nimankii la odhan jiray qabsadeen dhowr gooro ka dambaysayna way soo hijroodeen baa la yidhaahdaa weliba waxaa lasii tilmaamaa laba goor oo yuhuuddu thawra ay samayso istiri kacdoon ku samee boqortooyinkii romanskii meesha ka jiray dabeetana labadii goorba thawradoodii waa la demiyey ama waa laga xoog batay 70 miilaadiya markay ahayd miilaadiyadan hadda 2000 markay 70 maraysay iyo 132 ilaa 130 miilaadiyadu markay ahayd labada goorna hijro xoogaa ka soo hijrootay waana yuhuudda ugu badanee markaa degtay xijaas dhulka loo yaqaano yuhuudda meesha degani waa la qaybqaybiyaa laba qolo inta badan yuhuud baa loo sugaa inay ahaayeen waa banu nadiir nimanka la yidhaahdo iyo banu qurayda labada kooxooda la kala yidhaahdo waxaanay degeen ama deganaayeen madiina dhulkii ugu ciidda fiicnaayee beeralayda ku wanaagsanaa waxaanay ahaayeen dad ka shaqeeya oo kale tijaaradaasi sham iyo dhulkaasi u kala kacda marka reer banu qurayda iyo reer banu nadiir xaratu waaqib ama dhanka bariya magaalada madiine ayay deganaayeen waana madiine dhulkii ugu fiicnaa ee la beerayay beeruhu ku yaaleen markaas waxaa kaloo jirta qabiil saddexaad oo yuhuudda ka mid ah oo bani qaynuqaac la odhan jiray aaraadu iyaga waa isku khilaaftaa ma asliyan bay yuhuud ahaayeen mise carab yuhuudiyowday bay ahaayeen calaa kulli xaal un yuhuud bay ahaayeen ama diin ahaan ha ku galaan ama caynkan waxaa kaloo iska jiray oo masaadirta carabiga sheegaan qabaa'il yaryar oo badan oo yuhuudah oo iyana magacyo carbeed watay banu cikrama banu maxmer banu zacuura banu shatiiba banu jasham banu bahdal banu cawf banu mucaawiya banu muriid banu lqasiis banu thaclaba waxaasoo dham waa qabaa'il yaryar oo yuhuud ah laakiin aan ka tirsanayn kuwan waaweyn culamaai taarikhina ay ka warramaan yahuudda marka la isku wada daro ama ha noqdaan dad diin ahaan u galay ama ha noqdaan dad asalkoodu yuhuud ahaaye tiradoodu wax si dhaba uga warramo lama hayo laakiin haddaynu kutubu taarikh dib ugu noqonno wakhtigii nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam maalan inta badan dagaaladii ay gelayeen raggooda hubka qaadi karaya dagaalamaya marka la tilmaamo reer banu qaynuqaac oo kale ilaa 700 oo nin baa lagu tilmaamaa reer banu nadiir oo kale
iyana in leegoo kale ayaa lagu tilmaamaa reer banu quraydo oo kale 700 ilaa 900 inta udhaxaysa lagu tilmaamayay raggoodii hubqaadka ahaa marka la isku wada daro ragga hubqaadka ee yahuudeed waxay u ekaayeen ilaa 2000 iyo boqolaal yani ilaa 2000 oo nin oo hubqaada dee meesha mar hadday 2000 oo nin oo hubqaad in ka badani joogto dumarkoodii iyo carruurtoodii iyo xaasaskii iyo waxaa marka la tiriyana waad garan kartaa tiro waxoogaaya inay gaadhsiisan yihiin yahuudi markaa waxay ahaayeen mujtamac saytarada sare ama awoodda sare ee magaalada iyagu gacanta ku haya inkastoo aad odhan karto dhaqankii carabta ee qabiilnimaday wax ka qaateen oo iyaga laftoodu dad xilfatan ka dhaxeeya oo qabaa'ilka carbeed ee kale meesha degan la kale xilfi wadaaga ay noqdeen muddada badan ay kusoo dhex noolaayeen carabtana waxaad odhan kartaa wax badan bay dhaqamadii carbeed ka qaateen oo maalan ka mid yahay af carabi meesha lagaga wada hadli jiray reer madiino o dham af carabi ku wada hadli jireen waxay kaloo keeneen magaalada madiine dhaqamo aan markaa carabtu lahaan jirin oo aataamta ama qalcaadkan yaryare la dhiste ee samaysana ilaa 59 qalcadood oo yarar ama aataama magaalada madiine ku yaal baa la yidhaahdaa waa farsamo binaa-ul aataam ay ka keeneen sham kala yimaadeen in xaafadda iyo in isku xidhan intay meel wada degto dayr sare oo isku wareegsan ay yeelato yani noocaasoo kale u degan waa sham farsamooyinkay ka keeneen yahuuddu inta badan carabta iyaga kaga horreeyey dhanka dhaqaalaha iyo iqtisaadka siyaasadda afkaarta waxyaabahaasi laakiin haddana waxaad odhan kartaa kayaankii carbeed ay dhex galeen way ku milmeen iyaga laftoodu gaar ahaan raadkii qabiilnimada ahaa si xooga ayay u qaateen mujtamaca reer madiini wuu ka gedisnaa mujtamaca reer maka mujtamac tijaare un ku salaysan buu ahaa baayic mushtar laakiin mujtamaca reer madiini wuxuu ahaa mujtamac ku salaysan inta ugu badan le beereley iyo farsamo beereley bay lahaayeen timirta iyo cinabka xoog u beera iyo xubuub kaleba beereley wax dhaqatay xataa lahaayeenoo digaag iyo maashiyo kale iyo waxaasi sameeya farsamo yaqaanay lahaayeen sameeya dharka iyo waxaan la tolo iyo waxaasi oo dhan gaar ahaan qalabkan guryaha la dhigay iyo waxaas oo dhan yacni mujtamac ka dhaqan gedisan mujtamacii maka ee tijaarada qura ku salaysnaa ayay u ekaayeen waxaanay ahaayeen dad inta ugu badan leh dhaqaalahooda uu gacanta ugu jiro nimankaasi yuhuudeed oo farsamadii ribada ahaana ku dhaqma dhan kale markaynu tilmaamno carab baa la deganayd meesha tan carabta deganayd waa carab reer usdiya yani carabtii yeman ka soo qaxday iyaga waxaa la yidhahdaa taariikhdii dambe ee sadu ma'rabku uu dumay ama boqortooyinkii yemaneed markay dumayeen ayaa carabi kala firdhay yeman dadkii deganaan jiray qaxtaaniyiinta u badnaan jiray carabaha markaa xaggan usoo firdhay ee xijaaj soo degay usdiyiin bay u badnaayeen weliba usdiyiintu meelo badan bay degeene gaar ahaan 2 qabiil oo waxaan filayaa qolada khusaaciyiinta la yidhahdo maka agagaarkeeda deganayd iyo qolada tan aws iyo khasraj oo iyana madiine deganaa dhammaantood qabiilkaasi usdiga la yidhaahdo ayay ahaayeen ee yeman ka soo guuray waxaa la tilmaamaa 207 miilaadiyada ilaa iyo 540 miilaadiyada intii ka dhex lahayd bay qabaa'ilka carbeedna kolba yeman ka soo guureenoo meesha tan ay soo degeen marka waxaad moodaa ugu yaraan 2 qarni ama 3 qarni inay ka soo horreeyeen yuhuuddu meesha uga soo horreeyeen laakiin qabaa'ilkan carbeed meesha way la soo degeen gaar ahaan aws iyo khasraj waxay kala degeen aws manطaqat alcawaali bay degeen oo waxay jaar la noqdeen markaa reer banu qurayda iyo banu nadiir khasrajiyiintuna magaalada xaggeeda hoose qolana xagga sare ka degtay qolana xagga hoose ayay ka degtay qoladan xagga hoose ka deganina reer banu qaynuqaac ayay jaar ahaayeen aws dhulkay degantay baa labada dhul ahaan fiicnaa oo dhulkii beeraha isaga laftiisu xidhiidh la lahaa labadan qabiile carbeedna laftooda gudahooda munaafasa ka dhexaysay loolan taasi waxay keentay inay yuhuudda la kale noqdaan xilfi wadaag oo qoloba qolo ay xilfi wadaag la noqoto mujtamaca kan carbeed ee meeshan degay waxaynu odhan karnaa si kastaba ha dhacdee way ka tiro bateen mujtamaca madiina reer yahuudeed way ka tiro badnaayeen waayo inkastoo iyagaba aynan tiro koob rasmiya ka haynin laakiin waxaad ka garan kartaa ciidamadii muslimiinta ay saari jireen ee ansaar oo kale
markii fatxu maka ansaar ilaa dee 4,000 oo nin baa meesha marayay. markaa dee ciidan 4,000 oo nina nimanka soo saari karayay waxaad garanaysaa tiradoodu inay in badan ka badnayd, qoladii kalena ilaa 2,000 aynu ku tilmaamaynay ciidamadii yuhuudeed ee meesha deganaa. marka waxaa muuqata un asbaabtii doontaba ha noqotee yuhuud in lagaga badnaa tiro ahaan oo ay ka badnaayeen carabta meesha degani. laakiin yahuudi farsamadii ahayd inay khilaafka dhex wado oo isku dirto oo kala kaxayso, iyo iyagoo dee ahlu kitaab u ahaayo diin u sheeganayay oo waxyaabaha qaarkood ku dhaamay, taasi waxay keensatay inay carabta meesha timi xataa ay xilfi wadaag la kala yeelato nimankan yahuudeed ee kala degan. laakiin haddana carabtu markay isdisho yuhuuddu dhexdhexaad unbay ka ahaan jirtay inta badanoo iyagunbay isku eegi jirtay. cadaawad aada u xun baana dhex yaalay labadan qabiil gaar ahaan aws iyo khasraj. dagaallo badan oo horena way soo galeen, laakiin dagaalada hore oo dhan inta badan khasraj baa gacan sarrayn jiray oo aws waa laga yaro xoog badnaa, inkastoo dagaalkii ugu dambeeyey ee aws xoog badatay. xarbu bucaad oo dagaalkii u dambeeyeyya aws ayaa ku xoog badnayd. xarbu bucaadna isagu wuxuu dhacayba nebiga hijradiisii wax yar ka hor, iyagoo markaa un dagaalka laga soo hobdhigtay ayuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam. walidalik baa caaisha waxay odhan jirtayba xarbu bucaad wuxuu ahaa dagaal ilaahay uu uga dhigay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam yacnii loo sii horumariyey inuu meesha ku degaan. waayo xarbu bucaad wuxuu keenay kow in odayadii qabaa'ilkan ay dhintaan iyo nimankii madaxya waaweynta ka ahaa iyo raggii diinta ku hor iman lahaay oo dhan inay madhaan. aws iyo khasraj dhallinyaradoodii inay soo hadho shabaabah. ansaartii hore ee nebiga baycada la soo gashayna waataynu cabaas ibnu cabdilmualib waa ku lahaa waa maxay raggan aanan garanaynba ee wada dhallinyaradii waa kugu tilmaamayay. yani waxaa meesha ka muuqata aws iyo khasraj dadka u xoogane hor socda inay dhallinyaro isaga badnaayeen, mala-ul qowmna inay dagaalada tan hore ugu dhinteen. saasi daraaddeed bay noqotay meel fudud oo dacwadu si xoogan ay u geli karto. weliba dagaalka kani markan uu sii dhammaanayay xarbu bucaad ayay nimankan carbeed bal dib isugu noqnoqdeenoo waxaa la yidhi waraan dib u heshiino oo bal aws iyo khasraj dib ha la isugu keeno oo odayadooda waxa ka nool in ay madax qura wada samaystaan. markaa waagaa waxay isku dayayeen inay hal boqortooyo ah samaystaan oo ninkan la yidhaahdo cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul ra'sulmunaafiqiin lagu tilmaami jiray markii dambe. cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul nin reer khasraja buu ahaa, laakiin qabiilkan yaree jilibka yare isagu ka dhashay dagaalka xarbu bucaad muu gelino wuxuu yidhi anigu dhex baan ka ahay, dagaalkaana ma rabo inaan galo. dabeetana labadan qabiil markii la heshiisiiyey waxaa la yidhi madaxaan wada samaysano aws iyo khasraj isu keeni karta oo nimankeena carbeed hogaamisa. waxaa la yidhi cabdillaahi iyo kooxdiisa dagaalkan dhex ka ahaa, markaa cabdillaahi baa la rabay in madax laga dhigto. waata ay culamaai siira tilmaamayeenba markuu nebigu magaalada madiine soo galay waxaaba la tolayey baa la yidhaahdaa taajkii la saari lahaa cabdillaahi. yani already waa la isku waafaqay, laakiin in dee taaj la saaro boqortooyo tilmaamanoo magacale ay noqdaan baa lagu waday. saa daraaddeed taajku tolmadiisii baa socotay, maadaama taajkii la tolayey cabdillaahi nin kursi u fadhiyey buu ahaa. markii uu magaalada madiine nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam ee islaamkiina uu faafay ee muhaajiriintii ay yimaadeen, wadcigii magaaladuba wuu isbedelay oo nebi maxamed baa hogaamiyey calayhi salaatu wasalaam. qiyaado cusub buu yeeshay. cabdillaahi waxaa la yidhaha colaaddu halkay kaga bilaabantay halkan bay ahayd in kursigiisii uu maxamed qaatay buu arkayay calayhi salaatu wasalaam. yani kursi siyaasiyo loo tolayey iyo kursi uu meeluu ku fadhiisan lahaa ayuu arkaa qiyaadadii inuu la wareegayba nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. taasuu colaad isagu ka qaaday oo munaafiqnimadan iyo baabkan oo dhan wixii geliyey baabkaasaa ugu sii badnaa bay yidhahdaan. wadciga caynkaasiya oo heshiis markaa carabi dhexdooda ay wado oo dagaaladii ka soo dhex dhacay iyo dhibtan dhex maray ay ka murugooysan yihiin oo ay rabaan inay heshiiyaan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam soo galay. xadiidka bukhaarina waa ta caaisha ay tilmaamisay markaa kana ywmu bucaaثin ywm qadamahu اllahu lirasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam faqadama rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam waqad iftaraqa mala'uhum waqutilat sarwaatuhum wajurixuu. wuxuu soo galay bay tidhi maalintii bucaad maalin ilaahay nebiga u horumariyey bay ahayd ee nebigu wuxuu madiine yimi bay tidhi calayhi salaatu wasalaam iyadoo nimankay carbeed madaxdoodii ay kala jabtay. halkii quraysh mala-eedu ay wada socdeen diinta meel qudha looga wada tashanaya ee daaru nadwuhu ka jiray ee meel shir lagu wada qaato jiray, iyadoo nimankani haddun dagaal laga soo doogayo aan la is arki karin odayadu
mujarad la heshiisiyuunoo la iska kala madax qarsanayo oon talo badani ka dhaxaynin isla markaabay tidhi waqutilat sarwaatuhum wajuruxu sarwaadka waxaa la idhahaa sarawaat lqowm dadka inta ka tilmaamane had iyo goor ama madaxa ama maamus kule ama magac kule la tilmaamo leadershipka mujtamaca inta ah iyadoo mujtamaca kan leadershipkii uu ka dhintay bay leedahay badhna uu dhaawac yahay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo galay iyadoo weliba islaamkuna madiine uu kusii faafayo idan mujtamaca madiine loogu yimi labadaa kooxood oo carabta tan qayb badan oo ka midii markaasi ay islaamtay oo ay diinta soo galeen iyo dadkii soo hijrooday oo ah saxaabo soo hijrootay oo timi madiine oo u badan dad aan waxba haysanin saxaabada soo hijrootay waxay ahaayeen dad diintoodii ka doorbiday wax allaaliya waxa kale oo qof uu daneeyo oo ragay soo hijroodeen iyadoo hantidooda oo dhan lagala hadhay maalan suhayb arumi waxay sheegaan culamaai taariikh markuu soo hijroonayay waa la qabtay bay dhaaheen waxay dhaaheen suhaybo adigoo lagu wataa maka lagu keenaan xoolo lahayn makaad ku dhaqato xoolo ku yeelata saa daraaddeed adigaanu ku sii deynaynaa laakiin hal shilini ku raaci maayo xoolo aad la tegaysaa ma jirto anigun may daynaysaan buu ku yidhi haa baa la yidhi dabeetana xoolahoo dhan qaata buu yidhi aniguna sii daaye naftiisa quru la soo hijrooday waatuu nebigu lahaa rabixa suhayb oo ku tilmaamayay xadiidku xaakim soo aroorinayo ee saxiixun calaa sharti muslimka uu ku tilmaamayo waxaa ka mid ah inu soo tilmaamay abisalama oo ilmihii lagala hadhay oo xaaskii lagala hadhay oo wax walba laga reebo keligii iska soo hijrooday idan waxay ahaayeen saxaabada badane meeshan timi rag hantidoodii iyo adduunkoodii iyo waxoodiiba lagala hadhay laakiin door biday inay ilaah iyo rasuulkii u hijroodaan door biday inay diintooda xoojiyaan hijrada tani markaasi isdaba socda bay u socotay kooxo diintooda la soo baxsaday iyo markii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu hijradaba kaga yeelay waajib markuu isagu soo hijrooday isagii abibakar bay yimaadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yeelay waajib qof kasta oo muslimi inuu soo hijroodo oo wuxuu nebigu manciyey in ana bari buu nebigu yidhi waxaan beri ka ahay qof kastaoo muslim oo mushrikiinta dhex deganaada hijradu markaas waxay joogsatay markii la furtay maka ayuu nebigu yihi laa hijrata bacda alfatx maanta dabadeed hijra ma jirto yani dhulka o dhan muslim baa haystee nin walbaba halkaagaad ilahay ku caabudaysa ama wixii ka horeeyey hijradu waxay ahayd dad badan waajib bay ku ahayd oo muslimiinta ka mid ah weliba waxaa la yidhaha ghaswatu khandaq wixii ka horeeyey iyada xatmi bay ahayd waajiba qur-aan aada u badanina wuu soo degay oo ilaahay subxaana watacala uu hijrada ku ammaanayo waman yuhaajir fii sabiili اllahi yajid fi lardi muragaman kaiira wasaca waman yakruj min beytihi muhaajiran ila اllahi warasuulih uma yudriku اlmowt faqad waqaca ajruhu calى allah wاladiina haajaruu fii sabiili اllah uma qutiluu aw maatuu layurزaqanahum allahu risqa xasana waina allaha lahuwa khayru الraasiqiin yani aayaad badan oo qur-aan oo ilaahay subxaana watacala hijro uu kaga warramayo bale waxaa soo degay aayaad badan oo qur'aan oo lagu tilmaamayo cidda hijroon weyda inay dhaalimiin yihin ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu dhaalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lard qaluu alam takun ardu اllahi waasicata fatuhaajiruu fiiha faulaa'ika ma'waahum jahannama wasaa'at masiira ila almustadcafiina min alrijaali wاnnisa'i wاlwildaan ilaahay subxaana wa tacaala aayaad qur'aan uu ku leeyahay kuway malaa'igtu oofsatay iyagoo naftooda dulminaya oo malaa'igtu markay oofsanayso ay tidhaahdo war maxaa ku sugnaydeen ay yidhaahdaa dhulkaana lagu istidcaabsan jiro meeshaasaana lagu haystay oo la haystayaal baanu ahayn waar miyaan ilaahay dhulkiisu ballaadhnayn maxaa u hijroon weydeen baa lagu yidhaahdaa kuwaas baa la yidhi jahanamay gelayaan kooxun baa laga soo reebay kuwii iyaga mustadcafiinta ah ee dumar iyo carruur iyo ragba wixii la haystay iyaga maxaabiis loo haystay ama hijroon kari waaye mooyaane nin xooganoo intuu gaal iska dhex fadhiya caynkan ku warramay iyagu war ma laha baa la yidhi hijradaasi waxay keentay markaa in dad badan ay yimaado oo saxaabo badan ay soo hijrooto oo ay yimaadaan magaalada madiina oo wadci cusubi uu abuurmo saddexdan kooxood ayaa markaa magaalada isugu yimi koox walba si kooban baynu u tilmaami doonaa kooxda saxaabada ahi
waxay u badnaayeen baynu nihi dadkaasi soo hijrooday ee hanti iyo adduun iyo waxay lahaayeenba ka yimi ansaar oo meesha sii deganayd oo aws iyo khasraj ah yahuud oo dhankan taalla yahuud iyaga warkooda waxaynu ku koobaynaa waxay ahaayeen saddexdaa qabiile waaweyn iyo qabaa'il yaryar waxaanay ahaayeen niman aada u madax adag oo diinta iyagoo garanaya iska indhamarayay waxay ahayn mujtamac colaadda nebiga calayhi salaatu wasalaam ku talagalay oo aan marnaba ku talagelin inay islaamka raacaan kana tashaday markii hore rajaynayay in iyaga nebigu ka soo baxo laakiin markay arkeen nebigu inaanu iyaga ahayn colaadan ay kusii biirtay makrigood iyo halkay taagnaayeenna iyagoo og inuu nebi maxamed yahay bay diidanaayeen walidaalika iyagaa tusaale quraan soo qaadanaya inugu filan xadiidka bukhaari ku yaalla ee nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu yimi baa la yidhi ee uu madiine kusoo degay reer banu najaar ayuu caalimkoodii soo baxay baa la yidhi yahuud nin caalimu ahaa oo cabdillaahi ibnu salaam la odhan jiray cabdillaahi ibnu salaam oo caalim yahuudeedaa soo baxay nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam su-aal uu weydiiyey markaa uu leeyahay su-aalahan aan weydiiyey nebi mooyaane cid kaloo waktigan garanaysaa ma jirto markuu xaqiiqsaday inuu ilaahay rasuulkiisii yahay oo nebiga kutubta ku qoraaya ay sugayeen inuu yahay ayuu wuxuu yidhi hal baan sheegaya haddaba nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaan iminka kaa hora shahaato uun oo sidaas warkaygu ugu tago yuhuud iyo dadkii magaalada deganaa wax kale iga sheegi doonaa intaan warkayga la maqal ilaahay rasuulkiisiiyo buu yidhi waxaan rabaa yuhuudi waa dad been abuurad badane inaad yuhuud u yeedho ogaato kaan ahay intaan lay ogaanin nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi yuhuud buu u yeedhay way u yimaadeen cabdillahi ibnu salaamna guriguu geliyey yuhuud wuxuu ku yidhi ka warrama cabdillahi ibnu salaam maxaa u taqaaneen waxay yidhaahdeen aclamuna wabnu aclamina waakhirina wabnu akhyarina wa fii lafdin sayidina wabnu sayidina wa fii lafdin aakhar khayrina wabnu khayrina waafdalina wabnu afdalina ka warran baa la yidhi ninkaasi waxay idhaahdeen cabdillahi ibnu salaam waa ninka horta noogu cilmi badan bay idhaahdeen guri cilmina wuu ka soo jeedaa reer wada caalimkayagiina wuu dhalay isna waa caalimkayagii waa mar labaadee bay idhahdeen waa nin fadli badan waa mar saddexaadee waa ninka noogu khayr badan guri khayrlena wuu ka soo jeedaa waa odaygayagii bay idhahdeen odaygayagiina u dhalay sayidkaygii weeyaan ibnu sayidina waxaasoo ammaanaystaba dhige wuxuu nebigu yidhi afara'aytu min aslama cabdallah bal hadduu cabdillaahi islaamo maxaa yeelaysaan yani yuhuuday ninkii idinku cilmi badnaa hadduu nebinimadayda qiro idinku maxaa yeelaysaan waxay idhahdeen acaadahu allahu min dalik acaadahu allahu min dalik acaadahu allahu min dalik bay ku celceliyeen ilaahay waxaa ha ka ilaaliyo ilaahay waxaa ha ka ilaaliyo ilaahay waxaa ha ka ilaaliyo yani wax macquula maaha waa habaartan waxaanad sheegaysaaye allaha dhinac mariya bay leeyihin cabdillaahi ibnu salaam yani inuu qaato islaamnimadan ilaahay ha dhinac mariyo ayay ku dhawaaqeen cabdillaahi ibnu salaamoo guriga ku jira soo baxay markaasoo wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah cabdillaahi ibnu salaamkii ay cayn ka wadeen wuxuu yidhi waa ana shahaadanaya waxaan qiray ilaahayna inuu keli yahay keligii xaq lagu caabudo muxamedna inuu ilaahay rasuulkiisii iyo kaas baan qiray bay idhahdeen intay dhaqaaqeen bay waxay dhahdeen sharunaa wabnu sharina bay ka bilaabeen waa kii shar noogu shar badnaa kii noogu shar badnaana uu dhalay nimankii hadda lahaa waa sayiduna wabnu sayiduna waxay ka bilaabeen sharunaa wabnu sharina yahuud dhaqankoodu kaas buu ahaa meesha ay islaam ka taagnaayeenna noocaas buu ahaa muslimiintii kale meesha timi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku bilaabay kow binaa almujtamac alislaami inuu sameeyo mujtamac muslima in la sameeyo mujtamaca muslimkaa samayntiisu waxay ka bilaabantay kow inuu dadka ilaahay ku xidho masaajid u sameeyo markuu madiine nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam waxaynu soo tilmaamnay masjidu quba inuu dhisay markuu quba kusoo degay markuu soo dhaafayna inuu dhisay almasjid nabowi labadaa masaajid kow inuu dhisay oo labadaa masaajid weliba masjidu nabowi markii la dhisayay nebigu wax ka qaadayay alaabta dhagaxa iyo waxa yani qoryaha iyo waxa la sido ou nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisa wax kaga dhisayay xaadiثada masaajidku wax weyn bay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa qofka muslimka ah
waxa koowaadee loo baahan yahay inuu ihtimaamka siiyo. waxay tilmaamaysaa masjidku mujtamaca islaamiga waxa uu ka yahay. wuxuu ka yahay waa meel ay ilaahay ku caabudaan, waa meel ay ku tashadaan, waa meel ay tiladooda ku go'aansadaan, waa meesha mujtamacu uu ku nasto ee uu xataa cayaarahooday ku qaban jireen. ciidoo kale masaajidka gudihiisa lagu cayaari jiray. waxaad dareemaysaa markaa masaajidku inuu u ahaa barta ugu weyn mujtamaca muslimka ah inuu ahaa masaajidku. walidaalika calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu dhisay masaajid isagoo aan guri dhisan. bal qadiyadda labaadna u fiirso. guryamuu dhisan nebigu markuu madiine yimi ee wuxuu ka bilaabay inuu masaajid dhiso. masaajidka markuu dhameeyey kadib ayaa guryahan yaryaree nebiga dhinaca ka raacsiisan la dhisay. oo halkan iminka xabaashiisa ee uu nebigu ku aasan yahay waa gurigi yar u caasho u dhisay. isaga iyo abibakar halkan ay ku jiraan. markii dambe masaajidka la fidinayay buu fidninkii dambe ayuu soo dhex galay. idan nebigu wuxuu ka bilaabay inuu masaajid dhiso ka bilaabay. dhismaha masaajid wuxuu ka horreysiyey inuu guri dhisto. ahmiyad buu u lahaa islaamka daraaddeed. masaajideenna nimka khaawiga ah ee boodhkuun iyo carruurtu ay joogto aan cid badan oo kaleba ka xaadirin. islaamka wuxuu u ahaa halka wax walba laga maamule wax waliba ka bilaabmaane ka unkamaan. waana barta loo baahan yahay dadka muslimiinta inay marka horeba xoogga saaraan, waayo waa halka iyaga iyo ilaahay isku xidha. qofka muslimka ayaa alle halka isku xidha. xataa magaalooyinka markuu nebigu yimaado wuxuu kaga bilaabi jiray inuu masaajidka tago oo ku tukado oo ku sunnaysto kadib uu gurigiisa iyo meelaha usii kaco. masaajidkaasi buu dadkan ilaahay ku xidhay. waa mar labaadee wuxuu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam caqdi lmu'aakhaa. wuxuu walaaleeyey dadka muslimiinta ah oo ah iyadoo nusuus caami jirto marka horeba sheegaysa inama almu'minuuna ikhwa. dadka mu'miniintii inay walaala yihiin ayuu haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam markan wuxuu sii sameeyey walaalnimo gaar ah. walaalnimo gaar ah. culamaai taariikh dhowr goor oo nebigu wax walaaleeyey bay soo sheegaan, laakiin taynu inagu u jeedna waa tii ugu muhiimsanayd ee madiine ka dhacday ee bayna alansaari waalmuhaajiriina. ansaar iyo muhaajiriin ayuu walaaleeyey. ansaar iyo muhaajiriin waxaa loo walaaleeyey koowaad wuxuu ahaa mujtamac uu dhex yaallo kala durugsanaan dhaqaale. muhaajiriintu meesha yimaadeen iyagoo aan waxba haysanin. walidalik ba waxaynu taarikh kooban ka sheegi doonaa niman ahlu sufa la odhan jiroo kale. ahlu sufa waxay ahaayeen rag degay sufat lmasjid oo ah masaajidku markii hore qibladiisu waxay u jeeday bayt lmaqdis. dabeetana waa tii qiblada lasoo duway 17 bilood ama 16 bilood ba xaggaa loo tukanayay. kadib baa lasoo weeyey qiblada lasoo duwo kacbada la yidhi usoo tukada. xagga qiblada masaajidku markaa derbi buu ku lahaa teetan. teedkii buu nebigu yidhi saqaf soo saara. saqaf yar markii xaggan looga soo jeestaa saqaf la saaray. waxaa laga dhigay markaa meel dadku uu seexdo dadka aan hoyga madiine ku lahayn, gaar ahaan saxaabadaasi soo hijrootay aan waxba haysanin iyo dadka wufuudda nebiga u yimaada calayhi salaatu wasalaam ee wufuuddii islaamisay ama diinta soo galaysay ama imanisay, ama qofka socotada ee qariibka ee muslimka ee yimaada intuu magaalada kala qabsanayo meeluu ka degayo meeluu dega bay ahaan jirtay. calaa kulli xaal madiine waxaa soo degay bayn leenahay dad badan oo saxaabo aan waxba haysanin iyo koox hore u deganayd oo ah kooxdii ansaarta ahayd ee iyagu magaalada degaanka ku ahaa. maadaama uu nebigu rabay calayhi salaatu wasalaam dadkan mujtamaca kan cusub qaab dhaqaale oo uu caawiyana muu haynin, wuxuu bilaabay inuu ninba nin la walaaleeyo. ninba nin inuu la walaaleeyo. daartii gurigii uu lahaa anas ibnu malik baa la isugu keenay dadka. dabeetana muhaajiriintii iyo ansaartii 90 nin ba halkaa lagu walaaleeyey baa la yidhaahdaa. 45 muhaajiri iyo 45 ansaara la isku soo daray oo laba loo walaaleeyey. walaalnimadani maxay kaga gedisan tahay walaalnimadii caamka ahayd ee dadka muslimiinta ay wadaagayeen? waa mid kasii gedisan. waa walaalnimo dhiigga ka sokaysa. wuxuu nebigu rabay calayhi salaatu wasalaam inuu baro mujtamaca islaamiga ahi aasirat alcaqiida inay tahay waxa kulmisa dadka kan. waxaa muslimka kulmiya inaanu ahayn midab, af, luqo, qabiil, meeluu ka dhashay, meeluu degan yahay,
ee waxa kulmiya inuu noqdo mabaadi'da ay rumaysan yihiin waayo inta kale ma dooratid adigu afka aad ku hadlayso waa meeshaad ku dhalatay on afkii lagaga hadlayay midabka aad yeelanaysana waa midabkii reerihiinu inta badan lahaayeen ma waxaasi waxaad dooran karta maaha dadka waxaa isku xidhaa inuu noqdo wuxuu qofku doorasho u yeelan karo oo ah diinta iyo caqiidadu raacayo islaamku wuxuu nebigu sameeyey markaa mujtamac aan qoomiyadi walaalayn oo la odhan bahdeenna reer madiina laisku yidhaha reer yasrib baynu nahay ma aha waxa isu keenay qabiil maaha waxa isu keenay waa diinu mujtamacii koowaad ama dawladdii koowaad ee islaamiga ahayd waxay ka dhalatay inay noqdaan dad diini ay isu keento walidaalika carabta agtooda waxaa caan ahaan jirtay in qabiilku iyo casabiyad iyo tolla-aydu inay aada u xoog badnayd dhaqan aada u weyna inay ahayd si dhaqankaasi loo tirtira waxa la yidhi waxa la sameeyey walaalnimo ka sokaysa tii dhalashada oo waa maxay waxa la yidhi iyadaaba la isku dhaxlaa walaalnimadan 45 nin iyo 45 kan uu nebigu walaalaynaya calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd mid dhaxalkana la leeyahay kuwaad dhashay kuma dhaxlayaan waxa ku dhaxlaya kan aad walaalaha rasmiga lagaaga dhigay si mujtamaca kani uu isugu xidho aayaadka suurada al-anfaal ugu dambeeyay ilaahay leeyahay maxay wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd aayaadkaasi ku soo aroray suuratu anfaal ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku nasakhay mas'aladii dhaxalka walaalkan inay is dhaxlaan ama mujtamacu intii koowaad ee isku xidhnaa waxa la yidhi iyagaana is dhaxlaya walaalnimadan waxa la rabay in la sameeyo mujtamac cusub oo aan la odhan badhna waa laajiyiin aan la odhan laajiyiin looma bixin islaamka muhaajiriin baa loo bixiyey lama odhan reer maka laajiyiinta cusub ee magaalada soo degtay ama soo galeeti laguma sheegin ee waxa lagu sheegay muhaajiriin waa lafdi ka gedisan alfaada la isticmaalo walidaalika saa daraaddeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam labadan kooxood wuu walaalayay walaalnimadanna waxaa idinkaga filan axaadiista saxiixun qaar ka mid aan soo qaato waxaa idinkaga filan ee walaalnimaduu nebigu ka dhexaysiiyey calayhi salaatu wasalaam maalan sacd ibnu rabiic saxaabigii la odhan jiray ansaarta ahaa iyo cabdiraxmaan ibnu cawf cashara almubashiriin ninkii ka tirsanaa ee muhaajirka ahaa labada nin waxay ka mid ahaayeen markii laba dadka la isugu darayee labadii la walaaleeyey xadiidka bukhaari warinaya wuxuu leeyahay labadaa nin markii la walaaleeyey ayuu sacd ibnu rabiic wuxuu u yeedhay cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ku yidhi inii akharu alansaari maalan cabdiraxmaanow waxaan ahay nimanka ansaar marka la isku daro ragga ugu xoolo badan labaan ka mid ahay laba haweenana waan qabaa maanta mar haddii layna soo walaaleeyey hal baan yeelaya xoolahayga labaan u qaybinayaa un qayb qaado labada haweenana waan kuu geynayaa eego oo taad adigu doorataan kuu furayaa marka ay ciddo baxdo guurso waxaan haystay saas baynu laba ugu kala dhambalanaynaa maca dumarka labada waan qaybsanaynaa buu yidhi saasaan yeelaya halkaasuu isa soo taagay saxaabigii lala walaalayay saxaabiga kale qoladan muhaajiriintiina ma ahayn niman xoolo doon ah ee xoolakoodiiba way ka yimaadeen way ka soo hijroodeen hantidooday lahaayeenba laakiin waxay ahaayeen niman ilaah iyo rasuulkii usoo hijrooday iyo diintan inay dhisaan u yimid niman rabay inay dawlad islaamiya meeshan ka taagaan oo diintooda qaataan oo islaamnimadooda ilaashadaan u yimid ismuu odhan wallaahi waa fursade dee xoolahan gunta ka jar iyo islaantan lagu siiyey cabdiraxmaan ibnu cawfna wuxuu ku yidhi baaraka allahu laka fii ahlika wa maalik walaalow ilaahay xoolahaaga iyo haweenkaagaba ha kuu barakeeyo suuqa tijaaraduna aniga igee cabdiraxmaan waxaa nin xirfad wata xirfad tijaareed oo yaqaan nidaamka baaci mushtarka markaa ninkan muu is odhanin wallaahi maanta aad hanti heshay haddaba adiguna mar haddii laguu jilcay adna intaan dhufso oo kaxayso ee wuxuu yidhi ilaahay walaal waxaago dhan ha kuu barakeeyo ee aniga waxaad igeysaa suuqa baaci mushtarka wuxuu u tilmaamay markaasi suuqaqa baaci mushtari yuhuud baa iska haysata reer banu qanuqaac suuqoodii buu u tilmaamay markaa oo suuqaqa dahabka iyo wax lagu iibiye waaweyn ka mid a suuqii reer banu qanuqaac buu yimi maadaama ninkani xirfadan uu yaqaanay markiiba waxbuu kala iibiibiyo dilaalis buu bilaabo waa kaasi duhurkiiba wuxuu soo noqday waxoogaa aqit iyo in samana isagoo sita in subaga iyo in caanaa isagoo dilaalnimadii kusoo helay ayuu soo laabtay cabdiraxmaan ibnu cawf halkiibuu ka bilaabay kalahiisi in subaxiina u kalaho sayladiisaas iyo wixii uu soo dilaali karay iyo wuxuu soo samaysan karo soo samaysto
dhowr cashaba intaan laga soo wareegin ayuu maalintii dambe nebiga ku soo baxay calayhi salaatu wasalaam isagoo waxoogaa soo dhaashaday oo soo barafunsaday cabdiraxmaan ibnu cawf oo aanu dee ka muuqanin raggii kale wixii ka muuqday ayuu markiiba nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markaasi mahyam waa yani eray carbeed oo ah maa sha'nuk yani nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan oo aan sidiisii ahayn markuu arkay ayuu ku yidhi mahyam maa sha'nuk waana cabdiraxmaanow maxaa arrinkaagu waa sidee buu yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo aroos baan ho waan guursaday cabdiraxmaan wuxuu sheeganayaa markaa isbeddelkan ka muuqdaa waa nin aroosa waan guursaday buu yidhi oo gabadh ansaarta ka mida buu guursaday nebigu wuxuu ku yidhi kam suqta ilayha imisaad meher u siisa nuwaatun min dahab buu yidhi laftimireed dahabaan bixiyey buu yidhi yani cabdiraxmaan waa soo xoogsaday oo dabeetana gabadh buu guursaday oo meher buu ka bixiyey laftimireed dahaba ayuu meher u bixiyey xadiidka waxaanu soo qaadanun inaan tilmaamno idin tusiyo walaalnimada uu nebigu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam uu ka dhaliyey saxaabada dhexdeeda inaanay iyana ku kala hunguri qaadan iyagoo iyagu rabay walaalnimo rasmiya oo ansaar aanay istus iyo waxaa ka ahayn oo ilaahay uga markhaati kacay waayo ilaahay ba subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya yuxibuuna man haajara ilayhi walaa yajiduuna fii suduurihim xaaja waladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun ilaahay baa wuxuu leeyahay kuwii ansaar ahee magaalada hore u deganaa ee mu'miniinta hore u ahaa waxay jecel yihiin baa ilaahay yidhi kuwii u soo hijrooday uma arkayaan laajiyin iyo niman dhulka ka qaadaya iyo niman kusoo beel cusub oo la soo degtay waxa uma arkayaan ee yuxibuun baa ilahay yidhi man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu waxay siiyeen iyo wax aba yaraatay xasdi u hayaana ma jirto bal ee ilaahay wuxuu leeyahy wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa naftooday ka horumarinayaan xataa iyagoo iyagu baahan yacni walaalnimo naf qaybsiya oo uu walaalkii ka doorbidayo intuu isagu carruurtiisa iyo dumarkiisa seexiyo uu siinayo walaalkii oo baahan saas bay yeelayaan buu ilaahay qur-aanka ugu markhaati kacay tusaalahana waxaa idinkaga filan saxaabadii kalena sida yeeshay oo muhaajiriintuna inaanay sodhan un waxaa heshaanba urursada iyana halkaas bay taagnaayeen ay rabeen cabdiraxmaan binu cawf uu diidanaa yad wax qaadata inuu marnaba noqdo alyad almuctaa ta wax bixisin buu rabay inuu mar kasta ahaado walidalik buu muddo yar ku noqday madiinadu caynkaa ku yimi ee uu lahaa suuqay tusa muddo yar dabadeedna taajir buu ka mid ahaa tujaarta ugu waaweyn muslimiinta ka mid ah cabdiraxmaan binu cawf inta badan muslimiinta waxay yaqaaneen inuu ahaa nin maalqabeena laakiin waa ninkaasi intuu madiina soo galay isagoo aan shilin haysanin in yar haddana maalqabeenka ku noqday ee haddana jihaadka iyo wax walba ku jiray ee aan adduun ka mashquulin aakhiradiisa waxayna kaga filan tusaalaha yacni halka ay ansaarine ka joogtay waxbixin abaa hurayra xadiidku tilmaamaya isna bukhaari ku yaalla abaa hurayra ayaa wuxuu leeyahy bukhaari iyo muslim ba xadiidku ku yaalla baan rajaynayaa qaalat ilansaaru lilnabiyi sala allahu alayh waalihi wasalam iqsim baynana wa bayna ikhwaanina nakhiil ansaariintay nebiga u timi bay waxay ku yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo hantiday lahaayeen waxaa u badnaa maxay timir geetimireed beeraha ugu badana meeshu waa timir waxay dhahen ilaahay rasuulkiisiiyo meesha yaan cid wax isa siisaaba jirinbe timirtaba noo qaybi geetimireedka aynu leenahay ansaariba leedahay inta loo tago lasoo tiriyo oo loo tago ha loo qaybiyo una ansaar iyo qoloba inuunaan ku kala tagnaba sidaa waayo qofka hadduu kula nooliyo inaad wax siisiiso waxa laga yaaba inuu arko in uu qof baahanoo wax la siinayo laakiin haddii mar qura lagu kala tago un waxa inta lakala qaybsado la kala tago waa laba qof oo siman bay noqonayaan waxay idhahdeen ansaar iyo muhaajiriin ilaahay rasuulkiisiiyo geetimireedka iyagaba kaalay u qaybi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi qaala laa maya buu nebigu yidhi idin qaybin maayo waxay idhaahdeen markaa walaalnimadii soo dhaafta waxay leeyihin xooloo dhan ba noo qaybiba warkuba imkaana ku dhammaadeen wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maya idin qaybin maayo xoolihiina haysta waxay idhaahdeen markaa fatakfuuna almu'na wanushrikukum fi thamra muhaajiriintiiba waxay leeyihin haddaba shaqada naga qaabila beertii iyo midhihii iyo wixii annagaa iska leh shaqada naga qaabilo nala waraabiya beertii waraabiya oo ka shaqeeya wixii ka soo baxana
aan qaybsanna markaasi saasay aqbaleen qaaluu samicnaa waatacna ansaar markay ansaari ra'yigan soo jeedisay ayay muhaajiriintu yidhahdeen maya taasaanu aqbalayna waxaana siinin aanu xoogsanaanane beerahaanu ka shaqayno dabeetana wixii ka soo baxa laakiin xadiid kale abaa hurayra wuxuu ku tilmaamaya haddana ansaar ajarkiiba iyagaa la tegay nebigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisu iyo nimankani dee ajarkiiba iyagaa qaadanaya oo waa maxay shaqadiina iyagunbaaba soo qabanaya midhihiina hadhow waa la wada yeelanaya shaqadii ay yidhaahdeen shaqada idinku qabta hadhow waxa ka soo baxana aan wada yeelanno shaqada lafteediina iyagunbaa soo qabsanaya bay la yidhahdeen oo waxay nimankii shaqadiina iyaga qabsaday wixii ka soo baxayna waxbay naga siinayaan marka ajarkiiba dee iyagaa la tegaya maxaanu samaynaa si kaloo loogu abaalgudana garan mayno wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa maa dacawtumuuhum ajarkii in sha allahu yani si a uga abaalguddaan waa jiraysaa inta aa ammaanaysaan buu nebigu yidhi ee aa ilaahay u baryaysaan yani hanaaga dhulka la ogolaya kan baa ka mid ah hanaau shukr qofku hadduu yad kuu galay inaad ugu yaraan aada sheegtid ugu yaraan aada u mahadnaqdid waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiis ku tilmaamayaba man lam yashkur innaasa lam yashkur illah ninka aan dadkaba u mahad celini buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allana uma mahad celiyo idan qofku markuu wanaag kuu samaynada ugu yaraan jazaaka allahu inaad tidhaahdo ugu yaraan inaanad dafirin nimcadii iyo galladii laguu galay inaanad dafirin walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ahaa cidda ugu xusuus badan nimco loo galo ilaa xad xataa kuway gaaladu u gashay uu u qirayey wuxuu ku tilmaamayey ibnu mucamkii oday ka mida odayadii gaalo waa odaygii aynu shalay sheegaynay markuu mise doraad markuu daa'if ka soo noqday ninkii nebiga calayhi salaatu wasalaam magangelyada siinayey ee ay qurayshi lahayd hadday magangelyo tahay waa aqbalayna hadday adse diintiisa ad gashay mise waad magangelisay waa magangeliyey ayuu nebigu maalintii beder markuu godka ku guurayey quraysh boqorada madaxyadoodii markuu godka ku gurayey baktigoodii iyo dadkoodii kalena la xidhxidhay ee maxaabista loo qabsaday ayuu wuxuu lahaa maxaabistan iyo kuwan buu lahaa caday ibnu mucim ma filayno magaci ahaa hadduu noolaan lahaa buu yihi low kallamani hadduu haaulaa kuwan xunxun hadduu igala hadli lahaa buu nebigu maanta yidhi calayhi salaatu wasalaam caday ibnu mucim intuu yimaado waan wada siin lahaa buu nebigu yidhi maadaama abaalku ii galay aan ogaa maalintaasi isagoo gaal ahaabuu abaalkaa u galay gaalnimadiina uu ku dhintay laakiin buu nebigu leeyahay hadduu maanta noolaan lahaa baktigan waan wada siin lahaa oo igala hadli lahaa arrinkooda reer beder waxaan maxbuus usoo qabsaday oo dhan isagaan ku dari lahaa idan ansaarina saas bay yeeshay markii dambena macashaqadii iyagaa fuliyey markaasuu markay caynkan lahaana nebigu wuxuu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam inta aa ilaahay ugu mahad celinaysaan yani inta aa iyagana ammaanaysaan ilaahayna subxaanahu watacaala u baryaysaan yani waa abaalguddeen haddaad qofku intuu abaal kuu galo aada weydo waxaad bixiso ama waxaad ugu abaalguddo awalan waxaa fiican inaad mukaafa'a aadna samayso muhaajiriintii yidhi mukaafaadii samayn kari weyne maxaanu yeelana ajarkii way wada qaadanayaane waxa la yidhi u duceeya oo ammaanana nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu sameeyey mujtamac isku xidhan oo uu yahay waxa walaaleeya islaamnimo masaalixda kaloo dhanna laga tegayo inama almu'minuuna ikhwa saxa ay jirto ilahay uu leeya ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aabaa'akum waikhwaanakum awliyaa in istaxabu alkufra cala aliimaan ay tahay in diin la-aan looga tegaya aabbe iyo hooye iyo waalid oo dhamme hadday diinta diidaan waman yatawallahu minkum faulaa'ika minhum ilaahay tilmaamayo qul in kaana aabaa'ukum waabnaa'ukum waikhwaanukum waazwaajukum wacashiiratukum waamwaalun iqtaraftumuuha watijaaratun takhshawna kasaadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وحلنا مجتمع كريم وعنقضي مجتمع آصرة ودا حيسامة مجتمعا وحا حريريا ويهي الحب في الله إلهي درتي داد سجعل أو نبي عليه عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه midkiin iimaan lagama helin ilaa iyo walaalkii la jeclaado wuxuu naftiisa la jeceliye ay noqdaan mujtamacu nebigu leeyahy kaana allahu fii xaajati akhiih yani qofku inta uu walaalkii baahidiisa ku jiro wallahu fii cawni cabdin maa kana alcabdu fii cawni akhiih
ونبي عليه الصلاة والسلام كنت المامي مجتمع بيها إنه نبي آسرة ضد اسكو حدي أو لو بنيي إن أي اسكو حدمان مجتمع النبي لها عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خيرا بلا الإسلام كم حاو خير بدن تطعم الطعام وتقري السلام على من عرفت ومن لم تعرف من نبي لها إسلام كوحاو خير بدن وحويان إن راشين كان ضدك قودسه مساكين يعد والبا إن سلامتنا إن ضدك كو أخرج قف والبسلات مداد قرنيسية مداد قرنيبا يعني مجتمع مسلم كيسوي سقو حلمه هذا أنت تقانون ولقى سلامته أنت نبى سقو حلمه لكن قف مسلمان قرنا إن لبع شهادو كاسور بحد لبع عشبة سلامته ما نصدق هذا إسناوك سلام يضد السياقان ومسلمين هانسا إذا النبي عليه الصلاة والسلام تقر السلام على من عرفت ومن لم تعرف مجتمع أبوها والنبي يقول يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام تدخل الجنة بالسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله إيا حديث ترى بدل لا أتقاننا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وحاصل نصوصه waxay wada tilmaamayaan mujtamaca kan sidoo nabigu isugu xidhay calayhi salaatu wasalaam waa dhici kartaa in qof cadhoodo ama laba xurguf dhex marto wuxuu nabigu ku saleeyay inaan saddex casho ka badan marnaba cadho ku maqnaan karin laa yaxillu limuslim an yahjura akhaahu fawqa thalath saddex maalmood ka badan inaad cadho la maqnaan karin bal haddaad ka badan la maqnaato maxay la mid sanad haddaad maqan tahay waa ka safki damihi buu nabigu yiri hajru lmuslim inaad walaalkaayo muslima sanad afka u buurto tiraado waanu saynaa ninkaas ma wada hadallo waxay la mid tahay dhiigiisa daadiyay buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam yani dhiig qof muslimna daadintiisu wax fudud ma waa xadiidka abi daawud idan ahadiith badan oo saxiixa nabiga ka soo wada aroortay oo dhammaantood tilmaamaya mujtamaca kani sidoo isugu xidhmay waxaad ka garan kartaa mujtamaca kan iimaanka iyo xubbiga iyo kalgacalku inuu ahaa waxa dhisay waxa soo degay aayad quraan oo ilaahay leeyay lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun samaha gaari maysan ba ilaahay subhanahu wa ta'ala illa ya bahsatan mooyaane waxa maxay jeceshihiin abu talha oo ansaarta kamida maqlay dabeetana nabigu uu yimi wuxuu ilaahay rasuulkiisa iyo ilaahay quraanka wuxuu ku yiri lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wanaaga gaari maysan illa ya waxa jeceshiin bixisaan mooyaane waxaan ku sheegayaa ilaahay waxaan ugu jecelay xoolahayga waa beertan bayruha la yiraahdo bayruha waa beer masaajidka nabiga ku soo jeeday masaajidka beer taasi ku soo jeeda waxay ahaan jirtay beer intuu nabigu galay calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada iyo dadku ay biyo laga cabo oo biyo u macaaneyn jiray oo meel ugu shubi jiray dabeetana wuxuu ilaahay rasuulkiisa iyo quraan baa soo degay waxa jeceshiin oo bixisaan mooyaane sababa gaari maysaan waxaan rabaa khayrka alla sheegaya inaan gaadho xoolahaygana beertan weyn ee masaajidka hortiisa ku taalaan ugu jecelay beertatan innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa dhakhraha 'inda Allah wa sadaqan ilahi darti ula baxay ilaahay agtiisa inay taalo igu kaydaha taabaanan rajaynaya ee fadhaha ya rasuulullaahi haythu araka Allah meeshii alla uu ku tusiyo dhig oo bixi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri dhalika maalun raayih يروح ويغدو عليه ومال أجر كيسو يعني أبني مال بوقو صعده وركاقنا وان مغلق إلهي درتي بنا دولب حدين ويعني لغا أقبله قاضوا هدبا أقيب قرابة هذه يدتك كود دونسي كوا لسيني أنا كوا هالنقضاني أبو طلحة وحولي أفعله يا رسول الله وان يلي دبتنا أقاربتي المادرة يدتك أي تلقى هايين أيو أكل قيبي beertii weynayd ee uu bixinayay yaani waxaad arkaysaa aqniyaadii muslimiintu waxay xoolo haysteen sida ay ugu qaybinayeen dadka muslimiinta ee tirada badan leh ومع كل ذلك waxaan leenahay iyagoo waxa soo naf wadaaga iyo naf qaybsiga la sameeyay haddana waxa jiray uun dhibaato dhaqaale tiro badan leh waayo waa magaalo dad badan soo hijroonayaan oo muslim badan ku soo socdo oo haddana aan wali aanay haynin wax ku filan sida daraadeed baa waxa samaysmay baan leenahay ahlu safa oo kale waxa samaysmay waqtigaas ahlu safa
ahlusufa waxaynu nidhi waxa weeyaan waa dadkii muhaajiriin u badnaa midhadha ansaarana waaba la sheegayo meesha degi jiray laakiin waa niman runtii iyaguna taariikh dheer leh waayo waa rag ku caanbaxay zuhdiga iyo waraca iyo cifada iyo dhowrsoonaanta iyo cibaado waa rag in badan oo ka mid yahay adduunka ay ka doorbiday cibaado iyo aakhiro dadkan maka wada madiine soo wada yimina dad wada xirfadleeya may ahayn oo markiiba xirfad ay ku shaqaystaan wada garanayeen waa reer makiina dad tujaaro u badan bay ahaayeen tujaaradiina dee maalkii laga yimi ninka taajirkii inta ugu badan le dee nin aada wax u garanaya sida cabdiraxmaan ibnu cawf oo kale markiiba suuqa intuu isagu galo wax samayn kara mooyaane inta ugu badan le tijaaradu dee raasumaal bay u baahantay hanti aad dee ku tijaarisay wax ku rogrogtay inaad hayso waa iska adagtay ragga dee midhmidhiya dhifunba intuu halkan ka bilaabo dilaalnimo ka soo saaro markiiba kori kara laakiin mujtamac dhan oo soo hijrooday farsamada ma wada garanayaan taasi waxay abuurtay inuu mujtamaca haddana ku jiri karo dad badan oo aan hanti haysanin nimankaasi waxay deganaan jireen ahlu safa la odhan jiray masaajidka nebiga dhabarkiisaasi waxaa lagu tilmaamaa xawaalay 70 inay meelahaasi deganaan jirtay waayo exactly tira rasmiya lagama hayo laakiin dad badan waayo waa meel marka wufuudi timaado ama dad cusub yimaado dadku uu badanayo marka dadku magaalada uu la yara qabsadee cidi meelowday ay ka baxda halkanna uu dadku dee yaraanayo laakiin waa meel dad faqaro oo muslimiin deganaan jireen oo ay ka muuqato in badan inay raggaasi ahaayeen rag aan xataa mariyo fiican haysan go qura ama mara qura rag xataa la yidhaha maradoodu dhudhunkaba umay gaari jirin markuu halkan luqunta soo sudhiyo inta tan rag badan ay ka khajili jireen mara la-aan daraaddeed inay dabadaba soo marmaraan meelahoodan inay iska joogjoogaan mooyaane laakiin waxaynu dareemaynaa haddana nimankaasi inay ahaayeen niman aada u cibaado badan aada u alla ka cabsi badan dagaalada galoo jihaatama hantidoodu ay aada u yar tahay ragga badh gaajadu ay ka gaadhi jirto inay gaajo la dhacaan oo miyir beelaanba abu hurayra waa kii lahaa intaan gaajo dhaco oo miyir beelo ayay dadka badhmoodi jireen buu yidhi inuu jini ugu jiro oo markaasi halkaa luqunta iga saari jireen buu yidhi adinka iyagoo isla jin baa ku jira waxba yuu rafrafan ee qur-aan iyo wax lagu akriyo gaajaanan la miyir beelsanaa buu leeyahy yani waxaad garanaysaa markaa dadka kan sida ay baahidu ragga qaarkood meesha ay ka gaari jirtay haddana inay ahaayeen dad dhowrsoon oo ka mida un raggaale ansaar hantidiina haysta ku tilmaamayo ka mid ah ama dad dhowrsoon oo ka mida kuwa ilaahay qur-aanka uga markhaati kacee leeyay lilfuqaraa'i aladiina uxsiruu fii sabiili اllahi laa yastatiicuuna darban fi lard yaxsabuhum اljaahilu agniyaءa min atacafuf tacrifuhum bisiimaahum laa yas'aluuna الnaasa ilxaafa wamaa tunfiquu min khayri faina allaha bihi caliim ilahay markuu warramay dadka wax la siinaya wuxuu tilmaamay inay kuwa ka mid yihiin fuqaro ilaahay dartii u xidhmay oo hantidoodii iyo xoolahoodii iyo waxoodii ka yimo o usoo hijroodo halka jooga oo laa yastatiicuuna darban fi lard awoodi kari waaye laa yastatiicuuna darba inay dhulka tijaareeyaan oo waxoogsadaan yeeli kari waaye yaxsabuhum اljaahilu agniya haddana dhowrsooni waxay ka qabaan baa ilaahay yidhi ninkaan xogtooda hoose ogeyni dad waxaystuun buu moodaya inay hani yihiin un baa la moodaya waayo caado may ahaan jirin dadkii muslimiinta inay dowrsadaan caadana may ahaan jirin dadka muslimiinta iyagoo gaajo lama yirbeelaya inay wax sidaa u socdaan dhanka kalena caado may ahaan jirin qof muslimi inuu seexdo isagoo walaalkii oo muslimi dhankan uu ku gaajaysan yahay walidalik baa kooxda tan ilaahay wuxuu leeyahay yaxsabuhum اljaahilu agniya kuwa waxaysta hani bay moodi jireen min atacafuf dhowrsanaan daraaddood baa ilaahay yidhi laakiin baa ilaahay haddana leeyahay tacrifu bisiimaahum calaamadahooda aad ku garanaysaa baa ilahay haddana leeyahy de qof aan waxba haysanin inkastoo isasturo haddana waad dareemi kartaa un qofkan inay ka cas tahay ama inaanu waxba haysanin laakiin ilahay wuxuu leeyahy laa yas'aluuna الnaasa ilxaafa dadka wax kuma weydiistaan iyo oo ku celcelinayo noo dhiibaay leh ee wamaa tunfiquu min khayrin faina allaha bihi caliim baa ilahay leeyahy walidalik buu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam in badan lahaa bilaash looma odhan axaadiistana maqashaan طacaamu الاثnayn yakfi ثalaaث yani waa raggu markuu sii caraabayo midhmidhka guriga leh ayaa la tilmaamayo raggan inay wax ka sii kaxeeyaan markaasaa uu nebigu lahaa raashinka midkuna labuu ku filan yahay ka labaduna 3 buu ku filan yahay casuumad maad karin waxna maad karina waa intii yareed islaamtu ay kusii samaysay ayuu nebigu leeyahay mid kusii faralaab waa iskaga kii filaanaysaa
markaasuu nebigu uu tilmaamaya طacaamu lwaaxid yakfi اثnain ama طacaamu اثnain yakfi ثalaaثan tan uu nebigu tilmaamayo axaadiistan oo dhami ragga kan bay ku socotaa waana kuwa ilaahay leeya wاصbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum biاlghadaati wاlcashiy yuriiduuna wajha waa ragga aan waxba haysana in badan la tilmaamayo ragga kani aad bay u badnaayeen duruufaadkoodana waa kala gedisnaayeen waktiyo kala gedisanna waa noolaayeen laakiin kaasi waxaynu leenahay cumuuman wuxuu ahaa mujtamacii reer madiina ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhisay waxaynu markaa u bilaabi doonaa mujtamacaasi dadka kale siduu ula dhaqmay ama ha noqoto heshiisye la galay ama ha noqoto dagaallo la galay oo inta badan siirada dadku waxay u yaqaaneen in dagaaladii uu nebigu galay ee ah isaga iyo mujtamacii gaaleed ee kale laakiin runtii daraaso fiican waxa u baahan oo lowlaa aanan ka cabsanayn daalitaankiina u baahan daraaso in la siiyo mujtamacan islaamiga iyo gudihiisu si uu dhisnaa intaan lagu ordin uun had iyo goor laga warramin uun dagaalkii gaalka lala galay mujtamacan gaalka la dagaalamayay maxaa sameeyey qaabkuu u samaysmay haddaan mujtamacan lahayn gaal cidina iska dhicin kari mayso laakiin gaal waxaa la iska dhicin karaa marka mujtamaca kan uu noqdo kii la sameeyey ee la dhisay qaabkuu nebigu u dhisayna runtii waxay u baahan tahay in badan la daraaseeyo wallahu aclam wabilahi 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 wallahu aclam wabilahi